deeqaha dunyadu waqoo taxana weeyani tagtadii ku dhaaftaba waxba laga tixraacaye arrintii markaa taagan waa lala tacaalaye timaadada markaa maqanna waa aynad u toogayso hawjeedkiyo tilmaamaha haddaan idin tusaalayno tayantiyo tigsiga Puntland taabaqaad noqoyay tayantiyo tigsiga Puntland taabaqaad noqoyay tubta toosan iyo guusha waa loo tartamayaaye tallaabooyinkana qaadnayba حكومتنا تاجرو آلس كرم تاجنو تفرارق لما دوني توقع ذا يشا تبتتوسن يوبوشا والو ترتمايا تلابوين كان قادنيبا حكومتنا تاجرو آلس كرم تاجنو تفرارق لما دوني توقع ذا يشا hawjeedkiyo tilmaamaha haddaan idin tusaalayno tayantiyo tigsiga Puntland taabaqaad noqoyay tayantiyo tigsiga Puntland taabaqaad noqoyay runtii maanta waxaan booqasho ku joognaa mashaariicdii ka socotay Puntland khaasatan dhinaca jidadka oo runtii baahi weyn dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsigaba muhiim ugu ahayd oo muddadan faraha badan runtii Puntland culays ku haysay waxaan runtii ku faraxsanahay muddo dheer kadib oo baaritaano iyo daraasado ay ka socdeen in markii ugu dambeysay go'aankii dawladdu uu noqotay inay isku tashato oo ay ku guuleysatay inay mashaariicda hordhaca qaybahooda ay bilowdo runtii tijaabo cusub ay Puntland iyo Soomaaliya u tahay wax badan baa mashaariicda noocan kana inta badan waxa lagu tiirsanaan jiray deeqo ama gacan dibadda ka timaada iyo shirkado ajnabiga waxaan hadda bilownay in Puntland canshuurteedii dadka laga qaaday qayb ka mid loo weeciyo dhismayaasha infrastructure-ka sidoo kalena aan dhiirigelino kambaniyada localka ah on capacity-gooda runtii annaga oo shaki nagu jiro ayaan ku dhiiranay laakiin waxaan ku faraxsanahay shakigaas dadka qaybtiisa ay qabeen maanta inuu meesha ka baxay shirkado capacity u leh bal wixii hore wax ka wanaagsan dhisaya iyo shaqaale Soomaaliyeed oo kulli gacanta ku haya arrintan ma aha kaliya in wax la dhisayo laakiin waxay u tahay dadka Soomaaliyeed in ay awoodooda la tuso runtii awoodiiba maaragtay dadka Soomaaliyeed arki waayeen dhaqaale ahaan iyo farsamo ahaan iyo aqoon ahaan dalkeena waa dhisan karnaa waan hubaa in waxa hadda la qabtay ka badan la qabsan karo dekada socda jidad waaweyn baa socda buundooyin runtii buundooyinku iyo jidka la dhisay kala duwan yihiin mashruucan wuxuu kaga duwan yahay mashaariicda kale oo jidadka dabcan jidka ceel daahir mashruuc Soomaaliyeed oo Soomaali dhisayso weey oo si fiican loo qabtay laakiin buundada intaan la eg waxaan islahayn capacity-gaas wuxuu u baahan yahay wax ka duwan waxa ay haysataan laakiin waxaan uga mahadcelinahay Albaasha oo mashaariic fara badan horeen u qabatay haddana gacanta ku hayso inay proof gareysay si cilmi ah oo deep daraasada ay samaysay ay ku ogaatay waliba ay khaladaadkii markii hore haystay ay hadda xataa ka gungaareen marka injineerada iyo mas'uuliyiinta shirkadana uga mahadcelinayaa waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa wasaaradaha u xilsaarnaa hawlahan wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda hawlaha guud iyo qorsheynta iyo neysha BHA intaba runtii waxay muujiyeen in ay hawshaas
siday ahayd uga soo baxeen iyaga iyo kambaniyadii tandar furan maaragtay aan laalaab ku jirin iyo xisaabtan dhab ah ayaa shaqooyinkan ku socdaa waxaan rajaynayaa inay taas ay noqon doonto muftaaxka horumarka Puntland annaguna inta aan joogno aan wadi doono cid naga dambeysana sunnahaas aan rajaynayna inay si qaato waa isku tashan doonaa wixii aan qabsan karana waa qaban doonaa aad baad u mahadsantahay